so waxa weeyaan horta colorismka ama ilmaha madow in attentionka la saaro weliba khaasatan gabadha naanayso loogu waco madoobay iyo maaragtay iyadoo la dareensiinayo skin colorkeedu inuu yahay mid madow taasina ku keeni karta xusuus badan oo hadhowto gabadha yar ku keeni karta inaysan jeclaan skinkeeda ama maqaarkeeda inay isticmaasho waxyaabaha la isku cadeeyo in la dareensiyo inaysan qurux badnayn taas baa la rabaa in laga cararo marka la leeyahay naanaysaa xunxun ha u isticmaalin ilmaha ood ku dareensiinaysid skin colorkeedu inuu yahay mid ka duwan ka ilmaha kale ama mid aan qurux badnayn waxaa la leeyahay waxaan taa u samaynaynaa ama kugu dhiirigelinaynaa insha allah inaad ka fiirsatid naanaysaa xunxun inaad ka fiirsatid insha allah hadallada ilmahaaga hadhow dhaawaca u keeni karta hadallada insha allah hadhow ilmahaaga confidentigeeda ama kalsoonideeda hoos u dhigi karta so for example haddii aad gabar madow leedahay oo midabkeedu madow yahay waxaad dareensiinaysaa inaan nahay afrikaan inaan nahay dad madow oo qurux badan midabkeenu inuu yahay mid qurux badan and beautiful ah waxaad ka fogaanaysaa naanaysada xunxun waxaad dareensiinaysaa gabadha yar hooyo jirkaagu waa qurux badan yahay gabar madow baa tahay gabar qurux badan baa tahay midabkaagu waa maariin dhalaalaya waa midabka adduunka ugu qaalisan waa midabka qoraxda kaa difaacaya waa midabka uu ku yaryahay skin cancerka ama kansarka ku dhaca maqaarka waa midab qurux badan ilaahay uu ku jecel yahay marka I think muhiimaddu waxay noqonaysaa keliya waalidka in uu sameeyo intentional parenting ka hadalnay last week ama asbuuci hore ka hadalnay oo ah waalidnimada feejignow dad haddii aad leedahay ilmo yar oo skinkiisu uu yahay mid maariin ah ogow soomaalidu inaysan u arkin ilmo qurux badan eedada aftiga habareerta hadalla kusoo tuurtuurayaan loo baahan yahay ilmaha inaad u diyaarisid oo dhahday hooyo waad qurux badan tahay skinkaagu wuu qurux badan yahay maqaarkaagu wuu qurux badan yahay dadka marka guriga kuu imaanayaan inaad ilmahaaga difaacdid oo hadday hadal ugu wacaan ama hebel madooba oo ay dhahaan ama naanaysada jeclaan ay ugu wacaan inaad u istaagtid ilmahaaga oo dhahdid maya taas uguma wacaysid waa khalad inaad u wacdid ilmahayga taas xaraam ama aad moral u samaysid oo adugood hadal wanaagsan oo qurux badan ugu wacdid insha allah it's all about being aware ama ka fiirsashada maskaxda insha allah anigu example-kan rabay inaan nila wadaago waxooye sacaaday sidaan kuu sheegay hadda ka hor kulayl hadda ka hor qisaa jirtay arrin baa nagu dhacday dhakhtar baan tagnay gabar kaasankayga ayaa gabar dhashay ilmo yar aad u qurux badan ayaa dhashay laakiin soomaalida saan u sheegnay ilmahaasi wuxuu ahaa ilmo midabkiisu madow yahay marka somehow soomaalida identity crisis baa inagu dhacay buugaag baa laga qoray waa la og yahay the way maskaxdeenu u bedelmay ma aqaano in tani ay bilaabantay jeclaysaha cadaanka ama skin color inuu batay ama inagu dhashay kadib xilligii colonizationka ka dambeeyay iyo maarti wax lamida ma ogi inay jiri jirtay weligeed it's a data aanan hadda haysan ama research lagu samaynin laakiin maalinta aan dhakhtarka u tegay gabadha cousinkayga gabadha yar dhashay inay yar qurux badan bay ahayd laakiin maariina aabaheed bay raacday aabaheed baa wuxuu ahaa aaba madow oo maariina marka gabadhii waxay raacday aabaheed bay raacday generically she had a dark skin anagoo dhowr dhalinyaro oo fara badan oo dhowr u ah ayaanu isku soo raacnay gabadhii baan u tagnay dhakhtarkii markaan ugu tagnay wiilashii nala socday mid ka mid ah ayaa waxa uu yiri intuu istaagay oo ilmihii fiiriyay waa ilmo hadda dhowr saac keliya dhalan weeyaan oo ku jira sariirtiisa intuu saa u fiiriyay gabadhiibu wuxuu yiri alla buu yiri waa gabar madow sidii matalan wuxuu u yiri matalan ay ku jirto colorism ama discrimination maxaa la jiray yani dad Soomaali oo madow baynu nahay laakiin haddana inside waxaynu nahay dad alxamdulillah colorism ku dhaqma oo kala jecel qofka cad iyo qofka cas quruxda markay timaado khaasatan gabdhaha marka uu istaagay wuxuu yiri la gabar madow bay dhashay sidii wax naxdin oo kale ayuu ka naxay oo kale madowgii marka ayay gabadhii dibsatay runtii relationshipkoodii xiriirkoodii halkaas ayuu ku dhamaaday dhibaato ayaa ku kala dhexdhacday hadalkaas uu yiri way ilaawi kari weyday gabadhii dhibaato iyo wiilkii cousinkeeda ku kala dhexdhacay u malayn maayo maanta inay wada hadlaan because hadalkaas wuxuu ahaa hadal
khaldan buu ahaa. It was a very inappropriate, wuxuu ahaa hadal aan loo baahnayn, habboonin, xilligeedii joogin, colorism ay ka muuqato ama ay ka muuqato maxaa la dhihi jiray Soomaali maahan marka lagu fiiriyo cunsurinimo. Cunsuri yacni dadkii cunsuri yacni waa madownahay, dad Afrikaanaynu nahay, laakiin haddana waxaynu isku haysanaa inuu nahay dad cadaan oo indha ku buluugaa. Somehow we have identity crisis ayaan haysanaa. taasina runtii waxay gashay deep in our communitygeena. Ilmaheennii bay saameynaysaa, guurkii bay saameynaysaa, gabdhihii bay saameynaysaa, kalsoonidii gabdhaha ayay saameynaysaa, because gabadhii madow inay isku aragto gabaraan maaragta qurux badnayn, daawo ismariso, iscadayso, jidhkeedii xanuun ku yimaado, skin cancer ayaa laga qaadaa daawooyinka la isku cadeeyo, dhibaatooyin fara badan ayaa laga qaadaa. Muslim ahaan ama diin ahaana waa la sheegay inay tahay xaaraam, in midabka ilaahay uu ku siiyey la bedelo ama bleach lagu sameeyo xaaraam. لكن الله سبحانه وتعالى forgives. إلهي وغفور رحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني إلهي وعافية ذنبي كستا. إلهي وعافين كلا قبل. لكن تاني waxay naga tahay dhiirigelin and also being aware how you parent ama being maxaa la jiray intentional parenting, doing intentional parenting ama being aware oo waxa ilmaha ku dhahdid, sida aad u soo korisid, sida aad ula hadashid, iyo hadduu yahay ilmo midabkiisu madow yahay inaad ogaatid bulshada Soomaalida inuu cunsurinimo kala kulmayo. So true. Well said. MashaAllah. Yeah. That's so true. Yeah. Gabadhina waxa laga yaabaa markay weynaatay isku nafteeda in, you know, like even when she's hunting for her future husband because of her color, waxa laga yaabaa in valuegeeda hoos usoo rido, or she accepts anybody because she doesn't feel confident. So that's a big one. Thank you. Qof waxa laga yaabaa markii inay gabadha isku aragto in ay, you know, qiimaheeda ay hoos u dhacsan yahay mise gabadha cad ay ka. So that's waxaa marka aan also body image waxaa also ku xiran waxaa weightkana xoog weyn oo nagu haya in our girls in general, dadka dhan, lakin especially for the girls, weightka oo, you know, body imageka soo galaayo oo jeclaysiinta in dadka laga dhaadhaysiiyo. The skinnier you are, the healthier you are, and that's not true. Maahan. Being skinny has nothing to do with how healthy you are. Healthy gana maahan about, you know, that's not the only thing. Yani in skinny, you value of being skinny, you in weight loss thing, you body. Hima marka as a walid, anaga markaan walid nahay, ilma hortooda inaanan ku dhihin, oh, caloosheeda nacay, or, you know, like shaming part of your body, or like in la qabsado, in caloosh la qabsado meeshii buurnida la dhahay hebel buuro. Oh, caloosheeda nacay, or, you know, like shaming part of your body, or like in la qabsado, in caloosh la qabsado meeshii buurnida la dhahay hebel buuro. يعني like I said, you know, waa wax bulshadeenu samaysan weeyaan, laakiin waa wax hadhow ku keenaya dhibaato ilmaha. Gabadhii buurnayd in marba meel la qabsado, you know, calooshii lagu dhago, mar dabadii lagu dhago la dhaho buuray, you know, waad buuran tahay, ama lagu ciyaaro jirkiisa. Body image-ku waa it's all about understanding inuu ilmahan xaq u leeyahay jirkiisa, in loo baahan yahay inuu u daysid inuu saa u qurux badan yahay sidaa ilaah u sameeyay. I mean being healthy in ilmaha ku dhiirigelisid inuu cunto caafimaad la cuno, hilibkiisa uu yareeyo, ama lifestyle u samaysid caafimaad leh, laakiin aadan traumatization ku samaynin ama aadan ku samayn dhaawac maskaxda. I think that's what we're talking about. Exactly. So hortiisa waxaa muhiim ah marka maamada iyo both parents hortooda, ilmaha hortooda inay ku dhihin body shape iyo bodygooda si qalad ah mise si negative leh oo noo hadlin, even if that's what they believe. waxaa muhiim ah cuniga inuuna kaa arkin adoo oo isleedahay oo waa isnacay, weight, you know, I'm fat, if you're talking negatively, especially gabadhaadi waxay adiga isku aragtay idan isku arkaysaa. So the more confidence mama aad tahay in your own body, the more gabadhaadin idan confident ugu noqonaysaa in her body. So muhiim waxa because anaga sometimes easily maamooyinku waxay dhahaan waa waxyaabahaas iska dhahnaa oo aan dareemono ilmihoona maqlayaan oo aan leenahay, you know, that's healthy. What do you think how in terms of, before we move on to the how we deal with ilmailen, how we deal with the idea of healthy living? It's not, you know, as a family. As a family, I think aad bay muhiim u tahay in maaragtay ilmaha loo maaro gareeyo, you know, cuntooyinka caafimaadka leh, how to live healthier, you know, because mararka qaarkood ilmuhu hadduu xataa jirkiisu isbedelo uu yahay ilmo buuran, mararka qaarkood waxay ka turjumaysaa
cuntada iyo dietka family-ka in general the whole family marka waa muhiim maaragtay alxamdulilah in la geliyo waqti in loo cuno cunto caafimaad leh familka oo dhan laakiin ilmihii buuran inaan lagu samaynin lagu reebin maskaxdiisa traumatization ama PTSD ayaa ka imaan kara waxa loo yaqaano post traumatic stress disorder oo ah jugta ku dhacda maskaxda oo ilmihii isagoo yar kas ku dhici karta because waxyaabahan hadda la joogo dadkeenan hadda qurbaha jooga Soomaalida ilmayaasheena haddii saa lagu sameeyo way ku dhici kartaa PTSD ama jugta maskaxda intaas kaliya because imagine hooyada aabaha cousinkaaga habarta familkaagii oo jirkaaga ku ciyaaraya which is very common in Somali communities ama guryaheena yani ilmihii lagu ciyaaro depression bay keeni kartaa PTSD ay keeni kartaa isla hadal ay keeni kartaa because waxaan ognahay xanuunadaas in dadka qaar ay khatar ugu jiraan they have a genetic link but also environmental link waxa loo yaqaano oo ah habnal meesha uu ilmuhu kusoo koray khaasatan guriga marka haddaynu u gudubna insha allah because weli waxaan ku jirnaa body imagekii iyo aragtida ilmaha in la jeclaysiiyo ruuxiisa naftiisa kalarkiisa skinkiisa maskaxdiisa jirkiisa hilibkiisa hadduu ilmaha buuran xaq wuxuu leeyahay inuu jirkiisa jeclaado oon la jijiidin oon la taabanin oo violation lagu sameyn jirkiisa ama jirkeeda ilmaha buuran innocent waay iyaga most of the time who should we cuniga ayaa ilmo waay iyaga because whatever anaga environment u sameynay mise whatever we let assume that's the one growing up hadduu cunigaaga lacala cuniga weightkiisa adiga neglaraysay adiga aad ka warqaban badaayadii mise adiga ay kaa hoos baxday because anaga badanaa healthy living cuniga weightka le badanaa waxa waay ayaga accesskaasa waa guriga cunto ka helay mise iskuulka unhealthy food oo ka helay oo saas ku noqoto dambigiisa ma ahan cunigaas nothing to do with sigarayno waxaa marka loo baahan yahay anaga inaan isku laabano dhan cunigaanito anaa aan maybe anaa xoogaha aan ka warqabin marka weightkan korayay how marka how as a family ahaan family health style marka ugu focus gareyn karna without body shaming how can we because waxaa la arkay I think of course adaa meesha iska dheeray in terms of caafimaadka adaa ku fiican tell us how weight loss sometimes does not work if it's short term it's not working it does not work markuu yahay xilliga kooban so for example hadduu ilmaha yahay ama qofka weyn yahay dieting ama weight losska ama waxba ma sheegayso xilliga kooban la wado waxa wax sheegaya ama result keenaya ama natiijo keenaya khaasatan markaynu ka hadlayno ilmaha because ilmayaal buurbuurana obesity-ga ama ilmaha maaragtay hadda buurbuuran wuu ku batay caalamkii maadaama nutritionkii iyo bini'aadamkii noloshiisii ama cuntada isbedeshay marka ilmihii hadduu yahay ilmo buuran oo hilibkiisu badan yahay short termka waxba ma sheegaya ama xilli kooban waxa sheegaya the whole family life style inay samaystaan in maanta marka cuntada la karsanayo vegetable badan la kariyo oo geesaha laga cuno in biyaha guriga soodha aan la keenin ama waxyaabaha mamacaan ilmaha calorie ku badinaya in cuntooyinka caafimaad kale lasoo gado in healthy options ilmaha loo diyaariyo fruits and vegetable iyo cuntooyinka aan dhibaatada u keenin weydkiisa marka haddii kuu joogo ilmo alxamdulilah weydkiisu koreeyo ama khatar ugu jira body shaming because wuxuu khatar ugu jiraa ilmaha markuu hilibkiisu bato khatar wuxuu ugu jiraa jiijiidid iyo hadallo xunxun iyo dhibaatooyinka ka imaan kara bulshada iyo qoyska ama guriga bullyingka yes bullying and also that affects maxaa la jiray body imageka ama aragtida siday naftooda u arkaan iyo ruuxooda marka haddii ilmahaas kuu joogo waxaa loo baahan yahay inaad samaysid isbedel the whole family siday wax u cunaan cuntooyinkaad soo gadaysid inay noqoto kuwo caafimaad ku dhisan oo caafimaad leh marka insha allah waxaan u gudbaynaa sucaadee hadda pubertyga ama isbedelka yimaada xilliga gabdhaha caadadu ay ku dhacayso definitely yeah that's also a very sensitive topic I think in our community inkastoo hadda la arkay ilmaha waqtiga ay isbedeshay waqtiga ay pubertyga the period time ilmaha especially for girls zaman waxay ahaan jirtay 16 now hadda laakiin waxaa waaye iyagoo yaryaryihiin from the age of 9 xataa arkay laakiin average is about 12 years old waaye
So very young age why, so we need to prepare our children. There's also waxaa la ogaaday in depressionka iyo social anxiety linked to early period or early, you know, ilmaha ay weynaadaan caado qaangaaraan. Yeah, early exactly. early waxaa keeni kartaa depression iyo social anxiety avoidance. So marka cuniga earliga ay ku dhacdo, gabadha earliga ku dhacdo, waxaa muhiim ah in attention zaid la siiyo. It's a very sensitive time. Ka horna loo soo diyaariyo, laakiin haddee already laga adiga sii usoo diyaari. hadlo sax laga sii hadlo. I think that's most important because aniga hadda waxaan gabdhahay waan kala hadlaa. You know, waxaa jira xilli markaad gaadhid pubertygaaga ama xilli aad heli doontid every month bil walba caadada ay kugu dhacayso. waa wax caadiya because xilligaa markaad gaadhid jidhkaagu isbeddel ayaa ku imaanaya. calaamadaheena ayaad arkaysaa. mar walba waxaan rabaa inaa iisoo sheegtid. waxaan rabaa inaa ogaado marka kugu dhacdo. waxaan rabaa inaan kuusoo godo alaabahaad u baahan tahay. I want to celebrate. xataa waxaan rabaa inaan u dabaaldego the first time oo kugu dhaco. We want to celebrate. Wallahi gabadheeda xataa way iga diiday inaan cake soo godo ayaa rabay. I wanted to buy a cake but laakiin maalintaas waa xanuunsanaya. I was just very sick. markaas aabaheed ayaa kaxeeyey because today maanta waxaa jira aabayaal badan ayaa jira in even the familkayga ama cousinskayga aabayaal badan ayaa jira maanta because xataa aabanimadii maanta way isbedeshay the way gabdhaha iyo aabahood xidhiidhkooda xataa maanta way isbedeshay alxamdulilah. way isku dhow yihiin. waxyaaba badanoo waagi hore laga baqa jiray ama xumaan loo arki jiray ama ceeb loo arki jiray maanta waa wax caadiya. aabuhu markuu gabadhu caadada ku dhacayso alaabteeda ayuu soo godaya, dukaankayuu geynayaa, meeshayuu geynaya because culturally society aan ku dhex noolnahay. That's how fathers, you know, father their daughters. ma fahmaysaa? marka isagaa kaxeeya runtii oo usoo waxuxeeyay alaabii usoo gadgaday because aad baan u xanuunsanaa maanta. bal laakiin waxaan qorsheynayay inaan runtii dabaaldeg samayno. I wanted to have a cake inaan maanta samayno because mar walba waan ka hadli jirnay. calaamadahaada arkaysid. It's okay. xilligaan mararka qaarkood xataa wax ku imaan kara gabadha caadada ku dhacdo isbedel hormoneskeeda ama maaragtay xanaaq ayay yeelan kartaa. nuurkeeda ayaa isbedeli kara. dhabar xanuun ayaa ku dhici kara. murqaha ayaa xanuuni kara. mararka qaarkood madax xanuun, gumaar xanuun. mararka qaarkood cuntooyinka qaar ayay dooni kartaa. marka waa in laga sii hadlaa. gabadhu markay 10 sano jirto weliba khaasatan maanta maadaama early puberty aan arkayno ama early ugu dhacayso ciyaalkii iyagoo ilmo ah ku dhacayso caadadu. taasina ay ka timid isbedelka environmentiga ku noolahay maanta. nolosha, cuntada, stresska, everything maanta way isbedeleen. marka taas bay ka imaanaysaa. so what important aad bay muhiim u tahay in early on lala hadlo. so albaabka loo furo, you know what I mean, like albaabka loo furo that conversation oo aan la dhihin ams maxaa ku hadlaysaa waa ceeb lagama hadlo dhaqaso because taas waxay keenaysaa argagax, waxay keenaysaa body shaming, waxay keenaysaa xuqudad. ma fahmaysaa? so we want because maanta way ka duwan tahay sida aniga laysoo koriyay adiga lagu soo koriyey way ka duwan tahay. today is different. so maanta waxaan rabnaa in aan adduunka la jaan qaadino khaasatan xilliga maanta la joogo ageka la joogo aan la jaan qaadino. aynan ka dhiginin wax xun. waa wax ilaahay keeno. waa isbedel. waa beautiful. waa milestone weeyaan. waa xilli ay gabadhu gaadhay alxamdulilah. marka waa in loo dabaaldegaa. xasuus weyne first you know cyclekooda memory weyn way ku dhaafaysaa. Everybody, almost every girl remembers her first cycle. You know, it's a big that needs to be nourished and celebrated and, you know, normalized, you know, accepted. Marka muhiim again mar walba waxa u laabanaa also the waalidka. waxa muhiim ah gabadha inay ka aragto. You talk about when you adoo ka hadle taas, you know, about yourself because anaga markaan iska hadalna ilmaha markaasi more internalized ay noqonaysaa memorygaas. hadhowna uu soo baxa behavior ahaan ayaga ay isku apply galaynaya. so muhiim waa gabadha inay ku aragto how do you handle when you are in your cycle. yeah. Are you so hadhowta si gabadheeda u barto her daughter inshallah hadhow ay u barto. adiga marka adiga qarsan adiga when you have your cycle it's okay. If you have a beautiful girl ilmaha daa qabto gabdha la sheer garay. you know I am, you know, especially markay soo dhow yihiin
even normal work it tends to help usually because they see you and I'm on my cycle, I'm doing this. Or especially حتى مهمة حتى رمضان كي وحاليا you know, because of we have in Islamic Muslim culture shaming while Ramadan, you know, not eating on Ramadan when you have your cycle. There's a shaming that comes in this in the Muslim community. So how do you help her also that it's her choice? What do you want to do in Ramadan, and how do you you know, handle your you know, since you're not fasting? Yeah. إلهي wuxuu ku baneeyay ilaahay ayaa ku jecel xilligaas ilaahay waa jeceliyay gabdhaha because xilligaas maadaama oo isbedel ku imaanayo jirkaaga hormoneskaaga maadaama oo jirkaagu uu soo saarayo ukun buu soo saaraya xilligaas ukun walba xilligaas isbedelayay soo maraysaa because waxaa haysataa millions and millions of eggs waxaa haysataa intaas oo milyan oo eggs ayaa ku haysataa ovarigaaga ama waxaa la dhihi jiray ugxanhayaha bil walba xabad baa soo baxaysa xabadaas markay soo baxdo jirkaagu isbedel buu maraya marka allah subxaana watacaala ayaa wuxuu ku siiyey fasax you have the, you know, xilligan waa xilli aan ilaahay kaa cafiyey salaada soonta kaa cafiyey waxaasoo dhan ka cadid markaad la hadashid oo u sheegtid oo si wanaagsan oo positive uga hadashid there is no shaming waa ramadaan ilaahay baa ii ogolaaday allah subxaana watacaala has given me this time to eat and inshallah after ramadan I will fast ما فهمتها so ilmihii markii laga dhaadhiciyo there's no hiding there's no shaming nothing it's a beautiful experience alhamdulillah in loo sheego oo la dhaho yes ilaahay baa kaa cafiyey xilligan definitely yeah that's so beautiful waxaan kaloo marka aan rabaa inaan ku daro I think we're the part of how we want to say maadaama aan bari aan ka hadloono because badanaa waxaan dhahnaa how do we say our girls you know, we tend to say like people think of you this people think dadka saasay ku malaynayaan mise dadka saasay waxaan dadka hortooda you know how do we still anaga muhiim ay noqoto of course imagekaagii dadka hortooda inaa aad wax dadka shaki ku keeni karo lagaa shaki inaana keenin because rasuulkeena markuu la soconaya you know his wife Safiya wuxuu dhahay Safiya la soconaya dadkii gadaashiis socday u sheegay so it's important in la ogaysiiyo yes it's important for you inaa dadka hortooda wax shaki ku keeni kara inaad you know aad ku sameynin you need to but also don't worry about what people think about you dadka waxay ay ku malaynaya muhiimku ma adiga waxa isku malaynaya waxa adiga iska aaminsan tahay naftaada muhiim so it's like absolutely inaa bartid you know it's a life ilmahaga inaa usoo diyaarsid tomorrow like gabadhaada hadday jirto maanta dhowr iyo 10 sano how it's okay for someone to not love you that's fine I love you anu waa ku jeclahay aabahana waa ku jecel yahay walaalada way ku jecel yihiin you have plenty of people who love you dad badan baa ku jecel oo noloshaada ka mid ah dadka banaanka aad ku aragsid some people waa kuma jeclaanayaan some people way ku jeclaanayaan wax dhibo male you know but laakiin ilmaha salka markaa ka dhistid niyada ka dhistid alhamdulillah you did your job and runtaana u sheegaysaa you will meet people who don't like you you will meet people waxaad la kulmaysaa dad aan ku jeclayn dad hadal xun kaa dhahaya dad wax kaa sheegaya waxaan rabaa inaad noqotid qof adag oo strong ah waxaan rabaa inaad ogaatid mar walba in aad haysatid dad ku jecel waalid ku jecel walaalo ku jecel and you are beautiful mar walba inaa ilmaha because I think it takes a practice you know waa inaa ku practice garaysaa then caadi bay ku noqonaysaa fahmaysaa because a lot of times dad badan waalidiin badan taas kama aysan soo helin waalidiintood taas ma aysan ka soo helin waxay ka soo heleen dagaal iyo qub iyo qac iyo cayrsi marka iyagii inay dhahaan the cycle continues because iyagii inay dhahaan way ku adagtaa لكن I'm glad you're watching this video I'm glad inshallah inaan tan kusoo gudbinayno mugdi bay noqotay nalkii waxaan isticmaalayay the natural qoraxda caadiga baa isticmaalayay oo kasoo jeeday daaqada qoraxdii way dhacday waa taas inaga tagtay soo gabagabay inshallah mugdi bay noqotay meesha fadhiya we can't talk about girls without talking about their father we all know that research has proven research waxay proven aabaha qayb weyn ka qaadanaya ilmaha gabdhaha especially barbaarintooda iyo emotionkooda gabar every girl oo kalsooni buuxdo oo ku faraxsan nafteeda usually waxaa nolosheeda ku jiro aaba or a father figure oo dhisay qaybtaas ka qaatay most of the time so waxaa muhiim as fathers if you have a gabar haddaa qabtid please focus because hooyada doorkeesa
ma buuxi karto booska aabaha ma buuxi karto aabaha wuxuu buuxinaa wuxuu you know complete oga dhigaa natural needkaas ay u baahan tahay dhanka emotionka oo inay dareento that the love that she is so she doesn't have to be hunting for love markay weynaato or searching for approval and love so waxaa muhiim ah aabaad tahay gabar leedahay inaa gabadhaadii aad 10 times ka warqabtid than your boy. Absolutely, because saa ogtay Sacaad hadda research badan baa laga sameeyey nalkii waxaan daaray gudaha research badan baa lagu sameeyey xiriirka aabaha iyo gabadhiisa in fact waxaan ognahay gabadhu marka xiriir adag oo hoose ay la leedahay aabaheed kalsooni ay ku qabto aabuhu uu yahay mid uu mar walba available u ah gabadhiisa ama ka dhisa hadalka ama ka dhisa aragtida ka dhisa yacni xiriirkoodu wanaagsan yahay waxaa ognahay aabuhu inuu yahay the first man ninka u horeeya gabadhu ay jeclaanayso waa aabaheed marka unfortunately nasiib daro we do have issue badan ayaan ka haysanaa oo bulshadeena meesha maaragtay gabadhu aysan arkin aabaheed ama aysan xiriir wanaagsan la lahaynba laakiin hadda waxaan ognahay research markii la sameeyey xiriirka wanaagsan ee gabadha iyo aabaheed ka dhexeeya inay sal u noqonayso guusha gabadha saan ognahay gabadhu ha dhowto waxay noqonaysaa gabar isku kalsoon gabar meel gaadha gabar jacayl meel khaldan ka raadin because waxaa ognahay gabdho badan oo aan xiriirka nasiib u yeelan aabayaashood inay hadhow that male attention ama attentionka ay ka raadinayeen ninka ay ka raadinayeen nin ka faa'iideysanaya jidhkeeda iyo maskaxdeeda oo aan jeclayn laakiin iyadu jacayl bay raadinaysaa because jacaylkii aabanimo may soo helin marka waxaan ku dhiirigelinaynaa dhammaan waalidiinta aabayaasha inay xidhiidhkooda wanaajiyaan ay la leeyihiin gabdhahooda ay dhaleen waqti la qaataan ka dhisaan maskaxda runtii available u noqdaan sidoo kale hooyooyinka waxaan ku dhiirigelinaynaa inay taas fududeeyaan waxaan ognahay marar badan inay qoysasku kala tagaan hooyada keligeed ay korinayso ilmaha waxaa loo baahan yahay hooyadu inay taa fududayso oo xataa iyadoo wax tabanaysa ay haddana mar walba aabaha iyo ilmaha ay isu ogolaato isu fududaysa aragtidooda because xataa aragtida ilmuhu uu helayo aabaha ama uu soo booqanayo waxay buuxinaysaa baahida maskaxda emotional need ama waxay ku abuuraysaa xiriirka wanaagsan ee aabaha iyo maaragta ka dhexeeya ubadka waxay hadhowto memory buu noqonaysaa ama xusuus runtii lama soo koobi karo so that's very very important aad bay muhiim u tahay I know that we're leaving but I have to end with one tanaa ugu dambaysiinayna insha allah gabadhaada in badiga inay iyada xaq u leedahay badiga nobody can touch her body without her permission nobody badigeeda inay iyada mas-uul ka tahay how do you take care of topic aan kusii dheeraad maraba laakiin muhiim waa in cunugta la baro in badigeeda iyada mas-uul ka tahay inayse u ilaashan lahayd in badigeeda laga taaban iyadoo you know like of course islamically nobody should touch on you know beside her dad and her mom laakiin waxaa waaye on pressure because gabdhaha teenager maxaa lagu pressure gareeyaa through friends through you know through just from other guys because in reality gabdhihi waxay ku dhex jiraan wiilal iskuul lala aadaa so how can you not be pressured to be you know touched or to be korkaagi la taabto mase lagu pressure gareeyo staff aada diyaar u ahayn muhiim waa in laga dhigo who can touch your body what do you say how do you respond iskaga celinay qof marka uu kugu xadgudbaayo yes absolutely I think taas waxaa lagu dhajin karaa in xidhiidhka waalidka iyo ilmuhu markuu furan yahay oo waalidku ilmaha u sheego inuu mar walba u yimaado haddii uu u baahan yahay inuu la hadlo I think it depends on xiriirka ilmaha iyo waalidka ay wada leeyihiin because ilmuhu hadduu comfortable dareemayo hooyadu imaanaya uu sheegi karaa laakiin waxaan ognahay dadka ilmaha taabtaa jirkooda inay yihiin badanaaba family dad qoysasa guriga ku nool inay yihiin father abti maxaa la jiray waxaan ka wadaa abti adeer ehel marka ilmahaaga gabadhaada inaa bartid jirkaan adiga iskale jirkaan adiga ayaa iskale qofna xaq uma leh inuu taabto haddii uu qof taabto xaq waxaa u leedahay jirkaaga inaad difaacdid defend your body laakiin I am your mother ama I'm your father mar walba wayna aniga ii sheegtaa you tell me aniga wayna ii sheegtaa aniga badigaaga ma taabanayo for no reason I'm touching because I'm helping I'm washing in markay yarihiin laga bilaabo
waxaan kaa dhaqooyaa sisan ku taawanoyaa bariga qof ma taawanaya unless there's a reason dhakhtarka wuxuu markuu ku fiirinaya u baahan tahay le aabahay markuu oo musqush kuga caawinayo le waaye it's not about what is a safe touch iyo marka la insha Allah ka sii hadli doono because topicaas uu dheeryahay what is a safe la baro but I think anaga Soomaali ahaan taabashadaynu ka hadlayno waa taabashada dhaqanka xun waxaynu nahay dad bulsho Soomaaliya baynu nahay runtii aad isku taabto oo ishagereeyo oo istaabto oo faraka ciyaaro oo isdilo maaragtay taasi waa dhaqankeena waa culturekeena laakiin taabashadan ka hadlayno waa taabashada khaldan ee khaasatan ilmaha uu taabanayo qof aan xaq u lahayn qof guriga jooga ama because gabadhaadu mar walba khatar waxay ugu jirtaa in qof taabto marka inaad albaabka u furno oo dhahno hooyo haddii qof ku taabto waa inaan anigu hada qofka u horeeyo ogaada waa inaad ii timaada ii sheegtaa because aniga ayaa ku difaacay aniga hooyada aniga aabahaya waxaan rabaa inaad dareentid ama sidoo kale loo sheego what's inappropriate touching haddii qof saan kuu taabto khalad weeyaan haddii qof dabada kaa taabto khalad weeyaan waa inaa ii sheegtaa haddii qof saan ku dhaho waa inaa maaral ugu samaysay oo dhahdeed if this happens waa inaa ii sheegtaa because tas khalad weeyaan xaaraam weeyaan mana aha mid socon karta I think taas baa loo baahan yahay muhiimadu because bulshadeena culturekeena dad aragtid sida maaragtay loola dhaqmay taabashada ama faraxumaynta ama kufsiga waxaynu ka nimid culture ama bulsho wax kasta oo gabadha lagu sameeyay la yiri raali naga noqday la yiri it's okay and I think bulshadeena still way ku jirtaa bulshadeena banaanka jooga qurbaha jooga it continues to be a problem because maantadan ilmihi xataa la faraxumeeyay la kufsaday dadkii waxaa ku sameeyay wadankii waa loo diray tayada loo gooyay waa la kaxeeyay wadankii waa laga saaray taasina waxay ku tusaysaa dhibaatada taabashada ilmaha iyo xadgudubku inuu weli halkan ka socdo even here today marka taas way muhiim u tahay ilmaha inaad sheegtid oo dhahdid saan qofku uma taaban karo saan waa xaaraan haddii lagu taabto sidan haddii lagu taabto waa inaad aniga ii sheegtaa you come to me aniga waa inaad ii timaadaa yes thank you I think absolutely sucaad aad baad u mahadsan tahay maasha Allah xoogaa waa ku yara dheeraanay xoogaa intaan rabnay waa ka yara dheeraanay hadda fiir qoraxda waa dhacday maasha Allah mugdi baan joogaa laakiin this is aad bay muhiim u tahay aad bay topic aad buu muhiim u yahay it's very very important aad baan ugu mahadsan tahay sucaad thank you very much aad baan ugu mahadsan tahay walaashiis thank you assalamualaikum jazakallahu khairul jazaa insha Allah soo booqda sucaad nuur channelkeeda waxay ku leedahay youtube-ka ay channel ku leedahay sucaad aad gelinaysaa nuur sucaad nuur waxaad ka hadashaa mental health disorders waxaad ka hadashaa intentional parenting xoogaa noo sheeg a little bit of your program insha Allah focus waxaan saaray waalidiinta because waalidahay of course within how can I use mental health like into the more